degmada Ceelafin ee gobolka Sanaag waxa maanta ka daay roobabkaasi oo khasaare gaarsiiyay xarumo dawladeed iyo guryo dad shacab leeyihiin oo ay ka mid yihiin cisbitaalka weyn ee degmada Ceelafin iyo waliba cisbitaalka TB ee degmada Ceelafin dugsiga hoose dhexe ee degmada iyo sidoo kale dhir iyo waliba guryo dad shacab leeyihiin maayirka degmada Ceelafin Maxamed Aadan Digaale oo kormeer ku soo sameeyay roobabkaasi kadib ayaa faahfaahin ka dhageystay mas'uuliyiinta caafimaadka degmada Ceelafin oo ugu horeeyo maamulaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Ceelafin Dr. xaruntii TB ee degmada Ceelafin maanta roob laxaad leh ayaa degmada ka daay roobkaasi markuu daay wuxuu khasaare gaarsiiyay xaruntii TB ee degmada Ceelafin markii hawshaas maxay tahay roobku qaaday waxa halkan isugu nimay anaga iyo maayirka maamulka degmada oo isla markiiba goobta soo gaaray saan uu qiimeeyno xaaladda maxay tahay xaruntan isay tahay wixii khasaaraha gaaray marka isha macallina kulli sida aad arki doontaan xaruntan wuxuu qaaday saqafkii sare xagga dambe ayuu ka qaaday maxay tahay roobku waa kaalka yeelay isha ku arki doontaan khasaaraha meesha ka dhacay waxna waa technical waxna waa physical waxa waa farsamo oo mashiinkan imika chain expertiga iyo documentiska iyo qalabka ay ku shaqeynayeen waa arrin la baari doono wixii gaaray iyo wuxuu qabo waxna وخسارة فيزيكال ah inoo muuqdo khasaaraha physicalki waxa weeye inuu jiingadii qaaday in qolaalkii oo dhami wada darooreen inuu khasaaraha baaxad la gaarsiiyay marka kulli ilaahay baa mahadle ilaahay maxay tahay waqti yasiir ah inooga dhigo agaasimo ka warbixiyay iska khasaare sahlan buu ahaa hoosada hoolka dambe oo isna uu saqafkiisu kacay insha Allah waa wax la sameeysan karo isagu laga hawlgeli karo ilaahay roobkii raxmaadka hayno sii wado dhibaatadiisana hayna dhaafay wasaaradda maxay tahay markaan eegno xarumaha caafimaadka degmada Ceelafin laakiin khasaaraha ugu weyn wuxuu soo gaaray xarunta TB ee degmada Ceelafin oo adinka indhihiina ku soo arkay waa aragteen jiingadii uu ka qaaday khasaare la xalib u gaarsiiyay waxay ka mid tahay insha Allah roobkii maanta day waxyeeladiisa degmada Ceelafin hoosadan cisbitaalka baa kacday oo gaarigii imka ku jiray waa halka taagan qolka koonaha waarka koonaha maternity-gana jiingada oo ka yar kacday anaga intaas wax dhiban soo gaaray alxamdulillah meesha waxa ka dhacay horta khasaare wada ragtaan degmadan maxay talay waxa way xarunteedii si mutacnimana ugu shaqeynaysay khasaaraha alxamdulillah rabbil caalamiin macagsta nusqaanteeda leedahay si meesha u soo gaareen maxay talay waxa dhacday in meesha ay jiingadii ka daataan oo daafti biyo soo galaan jimba ayaa la exparty oo meeshan ka shaqeynaya wax qalab weyn kaasna wali ma aanan kala cadeyn inuu wali biyo galeen iyo in kale waayo si kadis ay isku wada raaceen jingadu uu qoyeen alaabtu way wada qoyday jingadu uu qaaday deesligana wad aragtaan oo wax biyo nagu soo dhaca wax dhici kara khasaare sahlan bahalka le waa aragtaan guriga jingadii waa kala tagay saddexdii qolba alaabtii noo tiilayna waa qoyday sidoo kale maamulayaasha dugsiyada hoose sare ee degmada Ceelafin ayaa iyana geestooda ka waramay khasaaraha uu gaarsiiyay sida aragtaa waxaanu joognaa dugsigii la oran jiray Dhoolayare hoose dhexe ama dugsiga hoose hadeerna aanu ugu dhigi jiray ardayda dugsiga sare oo aanu muddo dhowr sano hadeer aanu ku ahayn dulsaar iskuulkaas oo hadeer roobabkii maanta hogol fiican oo magaalada heshay sida aragtaan ay ku sameysay saameyn weyn oo ay fasalka kala tagtay jiingadii fasalkana waxa ku dhigan jiray fasalka afraad ee dugsiga sare degmada Ceelafin marka insha Allah kulli waa alxamdulillah oo nimca ka dhacday sida aragtaan hadeer waxaanu joognaa dugsigii sare markii horena ay deena haysatay ciriiri fara badan oo dugsigii hoose aan wax ku dhigi jiray oo ciriiriga ay kamid ahayd inaanu dulsaar ku nahay dugsi iska dhan oo meeshii uu ka baxay oo galabtii yararka ay dhigtaan galabtii inta badan roobka ku daan takala dhibaatada naga haysata waxa weeye meeshii qalab la'aan xafiis la'aan wax kasta oo aanu haysanay iskuul dhan oo isku dhameystiran baanu haysanay oo laabkiisii leh haddana waxaanu hay qaxooti haddana waxaan ugu sii darartayba in jiingadii la tagto aroortana iskuulka ardayda waa imanayaan waana fasalkii afraad waxaan joognaa dugsigii hoose dhexe ee Dhoolayare aan joognaa waxaan u taaganahay fasalkii ay ka qaaday dabayshu roobkii maanta day ka qaaday waa nimco alxamdulillah laakiin waxyeelay geesitay weeye fasalka afraad form 4 ku dhigan jireen bay nimcadaas waxyeeshay sidoo maamuluhu sheegayna dugsi dul saaran baanu ahayn waxaan ugu soo booqday oo waxyeeladaas noogu soo horeeyay noo yimi gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Ceelafin maayir Maxamed ayaana soo waxyeeladaas noo soo gurmaday noogu yimi isagana waan u mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa gudoomiyaha gurmadkiisa degdeg ah oo isla markiiba markii hore la soo hadlay isla markiina isagoo soconaya lugta cagtiisa ku soconaya oo nagu soo gaaray marka insha Allah isagana aad iyo aad baan sida guriga deegaankaba
aan ugu mahadnaqaynaa gabagabadiina kormeerkaasi kadib maayirka degmada Ceelafin Maxamed Aadan Digaal ayaa xafiiskiisa kaga warbixiyay guud ahaan khasaaraha roobabkani geysteen maanta taariikhdu tahay 24 bishii 9 2022 waxaa degmada Ceelafin ka daay roobabkii dayrta alxamdulillah rabbil caalamiin waxa ka daay roob lagu diirsaday roobkaas oo adigu lahaa dabaylo waxyeelooyin aan badnayn geystay intaanu ka warqabno goobaha dawladda wuxuu waxyeelo gaarsiiyay isbitaalka TB-da oo jiingadii ka qaaday iyo qorigii qayb kamid ah sidoo kale waxa uu isna jiingadii ka qaaday hal fasal oo kamid ah dugsiga hoose dhexe wuxuu kaloo runtiisna uu waxyeelo gaarsiiyay hoosada isbitaalka weyn ee magaalada Ceelafweyn waxa kale oo iyana waxyeelo gaarsiiyay guriyo badan oo shacabku leeyahay qaar oo ka qaaday jiingadihii iyo qaar oo maxay ahaydey barandooyinkii ka hordhisnaa qaaday sandaqado ayuu qaaday sidoo kale dhil buu riday biro laydh baa iyana dhacay intaana ka warqabno kuleyba wuxuu geystay khasaare marka loo eego aan aad u badnayn alxamdulillah rabbil caalamiin intaanu ka warqabno ee kormeerka markii aanu soo sameynay inahaas ay ahayd dadka shacabka ah ee degmada Ceelafweyn degan iyo nawaaxigeeda waxaan ugu baaqaynaa inay guryaha iska adkeeyaan oo ay wax iska saaraan dhishooda iyo kaleemo adag iska geliyaan cidii awooda sidoo kale dadka maxay ahayd miyiga degan waxaan ugu baaqaynaa maadaama ay roobabkii dayrtu ay bilaabmeen waxaan ugu baaqaynaa inay meelaha gudanka ay ka baxaan oo aanay dooxooyinka gudahooda aanay degin ee ay degaan dhulka turugiyada iyo dhulka taagooyinka ayaan biyo soo gaaraynin alxamdulillah sida roobka hadda u daaya wuxuu u eegyahay roob wax weeyaan jir ah sidaa daraadeed waxaan leenahay meelaha gudamada ka baxa intaasaan iyagana ugu baaqaynaa dhul daaqsimeedkan ayaan la kala cishan ee hal isku soo dhaweeyo kulaba xilliyadan oo kale waa la isku guurguuraa baaqaasaan runtii dadka u diraynaa miyiga yaala maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelafweyn